kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha VOA barnaamijkeena oo toddobaadkan idinla soo codsiinayaan anigoo maxamed cabdiye sahra ciidla nuur waxaan idinku haynaa dhibaatada iyo saameynta uu reebay qaraxii argagaxa lahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho warbixin ka hadlaysa taariikhda nin ka tegay gobolka Minnesota oo ka mid ahaa in ka badan 300 oo qof oo ku dhintay magaalada muqdisho aynu ku bilowna weli waxaa Soomaaliya laga dareemayaa raadadka uu ka tegay qaraxii argagaxa lahaa ee dhawaanta ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay sida la sheegay in ka badan 300 oo qof halka qiyaastii 400 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen kuwaasi oo qaarkood dibadda loo qaaday qaraxaasi weli ma jirto cid sheegatay hase ahaatee dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay ururka al-shabaab inay ka dambeeyeen haddaba qaraxaasi sida uu dhacay qasaaraha uu geystay iyo waliba waxa laga baran karo waxa warbixintan inoogu eegaya wariyaha VOA-da Jacfar Kukay waxa uu noqday qaraxii ismidaamin ee dunida ugu weynaa marka laga eego awoodda walxaha loo adeegsaday baaxadda baabuurka lagu fuliyay iyo khasaaraha naf iyo burburba leh ee uu geystay dadka arrimahan aqoonta u leh waxa ay tilmaameen in wax aan ka yarayn 2 tan oo isugu jira walxaha qarxa waxyaabo sii kaaba awoodda qaraxa sida biro go'an aashito iyo gaaska cuntada lagu karsado uu ka koobnaa weerarku waxa uu burbur baaxad leh u geystay qiyaastii 1 kiiloomitir oo wareega dhismayaashii ku dhawaa bu'da qaraxna gebi ahaanba dhulka ayay la sinmeen marka laga soo tago dadka ku dhintay ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyay oo 300 kor u dhaafayana waxaa jira kuwa iyaga iyo baabuurtii ay wateenba weli nolol iyo geeriba lagu laayahay waxaana loo badinayaa in ay gaariga isqarxiyay aad ugu dhawaayeen isgoyska kiiloomitir 5 waa mid ka mid ah meelaha ugu ciriiriga badan leh magaalada muqdisho kumaba sii jirto xilliyada subaxii hore ah iyo duhurkii iyo weliba waqtiga uu weerarku dhacayay oo ahayd galabtii sirdoonka Soomaaliya iyo dadka arrimahan u dhuundaloola waxa ay sheegeen in sida muuqata aanu bartilmaameedku isgoyska Soobe ahayn laakiin sababo aan weli la garan ay ismidaamiyihii kaxaynayay ku qasbeen inuu boqolaalkaasi rayidka ah ligo goobaha la hadal hayo in uu beegsigu ahaa waxa ka mid ah saldhigga military ee uu Turkigu dhawaan ka furtay Muqdisho inkastoo sida la sheegay haddii baabuurku uu ka yimid dhinaca Afgooye uu kol hore soo dhaafay saldhiggaasi meydadka durbaba kuwii la aqoonsaday eheladoodu way aasteen intii doorsoontay ee la garan waayeyna si wadar ah ayaa loo xabaalay laakiin waxaa culays weyn isbitaalada caasimadda ku noqday in ay wada qaabilaan adeeg buuxana u fidiyaan boqolaalka ruux ee uu dhaawacu ka soo gaaray qaraxaasi dibadda waxaa durbaba ka jawaabay baaq gargaar dalbasho ah oo ay xukuumadda Soomaaliya dirtay dowladda Turkiga oo maalintii xigtayba dalka keentay dawo agab dhaqaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo uu hogaaminayay wasiirka caafimaadka Turkiga waxaanay diyaaradii ay Ankara soo dirtay dib u qaaday dhaawac sodomeeye ah oo lagu sheegay kuwii ugu darnaa waxaana la geeyay Turkiga oo adeeg caafimaad siinaya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlayay gargaarka Soomaaliya la gaarsiiyay ayaa yiri indhaha kama eegi karno dhibaatada Soomaalida ku dhacday aaway dunida inteedii kale maxay u gargaari laayihiin Soomaaliya qaarkood waxay yiraahdeen waan caawin doonaa waxaan isweydiinayaa aaway gargaarkii ay ballan qaadeen isla maalintaasi uu gargaarka Turkigu Muqdisho soo gaaray waxa garoonka diyuuradaha aadan caddo soo caga dhigatay 2 diyaaradood oo uu soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo sida dhaqaatiir howlwadeenno caafimaad dawo iyo agab kale waxaana hogaaminayay wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda Djibouti wax kale oo aan qaban karnay ma jira inaan inta dhaawac ah bal sidii wax loo gaarsiin lahaa ayaan 30 nin oo wixii aan haynay akhrisaayeen iyo dhaqtaro iyo kalkaaliyaashoodii intaba aan ka gaarsiinay dad waxa jira yani maanta cid u imanaysa oo wax siinaysa aanay jirin marka dadkoo dhan uu sara kacay imika oo wixii dadka ka naxayay oo dhan ya dawlado kalena way yani sida Turkiga iyo wadanada jaarka iyo Kenya iyo Qatar iyo dawladda Mareykanka iyo
wixii karaya oo dhan waxbaa la soo wadaa innagu inaan dee ka hadhna maaha sidoo kale dowladda qatar ayaa diyuurad milatari ku geysay muqdisho dawo qalab caafimaad iyo sidoo kale dhakhaatiir waxaanay daabushay dhaawacii darnaa oo ay geysay dalka suudaan si halkaasi loogu dabiibo waxaana qarashka ku baxaya dhiibaya xukuumadda qatar sidoo kale dooxa waxa ay ballan qaaday in ay keenista dawada iyo daadguraynta dhaawacaba sii joogtayn doonto kenya ayaa ka mid ahayd dowladihii dawooyinka soo diray islamarkaana dhaawaca ka daabulay muqdisho sidoo kalena dowladda maraykanka ayaa xamar geysay dawo iyo qalab caafimaad weerarkan oo ah kii rayidkii ugu badnaa lagu dilo abid wakhti sidaa u kooban ee muqdisho ka dhaca ayaa mideeyey shacabka soomaaliyeed oo markoodii horeba aanay jirin xuduudo waaweyn amaba ad adag oo kala horayey musiibo waxay ahayd qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo bani aadam oo bani aadamnimo ay ku dambaysaba qalbigiisa gelgeshay yani dad ilaa iyo hadda dadkoodii ay garan laayihiin oo guftay oo yaraaday oo dhuxul noqday oo maaragtay ilaa boqol qofood lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen marka ka hor dalkan soo maray maahan inkastoo dowladda hoose ee muqdisho ay soo qabanqaabisay waxaa xamar ka dhacay bannaanbixii ugu ballaarnaa dadka ka qayb galay oo aad u caraysnaa ayaa waxaa la hadlay madaxda soomaaliya oo uu ugu horreeyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaanu sheegay in dowlad ahaan ay bixinayaan 14 milyan oo dollar oo lagu gargaarayo qoysaska dadkii weerarkaasi ku geeriyooday isla markaana lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab al-shabaab weli ma sheegan mas-uuliyadda weerarkan inkastoo dowladda iyo dadka arrimaha kooxaha xagjirka ka faalloodaba ay sheegayaan in falkani ay ka muuqdaan faraha kooxdaasi khubaradu waxa ay sheegayaan in dhowr arrimood oo isbiirsaday ay ku qasabtay al-shabaab inaanay sheegan weerarkan waa tan koowaade maadaama shacab lagu gumaaday in ay ka baqayaan falcelinta dadweynaha soomaaliyeed oo haddii ay dhankooda u jeestaan jiritaankooda halis gelin kara sidoo kalena waxa ay baqdin ka qabaan in khilaafka dhexdooda ka jira ay sii xoojiso islamarkaana ay horseedo in ay xubno iyo saraakiil ka tirsan ka soo baxsadaan sida mukhtaar roobow oo kale dadka qaraxa ku dhintay waxaa ku jira 3 qof oo ka tegay dalka Mareykanka Abuukar Maxamed Daahiye waxa uu ahaa xogayii wasaaradda ganacsiga waxa uu ka tegay gobolka Virginia waxaana muddo ka shaqeynayay Soomaaliya xaaska Abuukar Daahiye ayaa iyaduna ku dhimatay dhaawac isla qaraxa Muqdisho ka soo gaaray Maxamuud Cilmi waxa uu ahaa agaasimihii arrimaha bini'aadanimada ee wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka waxa uu ka tegay gobolka Ohio wuxuuna muddo ka shaqeynayay Soomaaliya axmed ciyow waxa uu ka tegay gobolka Minnesota waxaana uu geeriyooday 4 saacadood kadib markii uu Muqdisho gaadhay xaaska iyo 3 caruur ah oo uu ka tegay iyo waliba jaaliyadda gobolka Minnesota ayaa muujiyay sida ay uga murugoodeen dhimashadii ciyow warbixintan waxaa Minneapolis ka soo diray wariyahayga Maxamuud Masacade الله نحرسته أحمد عيو وحاو كودشي مقالة مقدشو سنة كي كون سقال بقول لحدن إيو شانتي وحاونا قوال كمينيسوتا سود دقي سنة كي كون سقال بقول سقاشان يسيدي أحمد وحاو يفكا وقتغي حاس يسدح عرورة وحينا قيريدي سوق القشي برشادة الصومالية دي كودغن قوال كمينيسوتا وايو وحاو ها شخصي إيجالية دو قوال كواناك بدن كو يقانين هساهاتي حانون كأوغو بدن إي قيريدة لما فيلان كي أحمد عيو waxay saamaysay qoyskii uu ka baxay. And he wanted to visit his family, and then something bad happened. It got bombed. When you heard the news, what did you feel? I felt sad. My mother told me, and I just cried, and I told my sister. Ruun Cabdullaahi Cabdi oo loo yaqaano Ruun Marteello waa fadii uu marxuumku ka geeriyooday waxayna maqalka geeridiisu ahayd murugo aan la cabiri karin iyo tiirkii ay nolosheedu ku taagnayd oo go'ay. ruun marteello aan gurigeeda ku booqannay ayaa sheegtay in saygeeda safarkii uu muqdisho ku aaday uu ahaa 2 toddobaad oo keliya isagoo doonayay inuu soo indha-indheeyo in muqdisho ay tahay meel ay reerku u guuri karaan iyo in kale balse uu ka mid noqday boqolaalkii naftooda ku waayey qaraxii la waayey cid sheegata mas-uuliyaddiisa ee ka dhacay isgoyska Soobe. ruun marteello waxay ka sheekaynaysaa qofkii uu ahaa saygeedii ay ku weysay qaraxii muqdisho. aabba fiican nin wanaagsan uu ahaa axmed walaalkay uu ahaa
saaxiibkay u ahaa qof aan sheekaysano u ahaa alxamdulilaahi bini aadamka waa isqabtaa laakiin dad waxa alla haddii problem hataa ka dhexdhaco dhexdooda ka xaliya ahayn. axmed ciyow waxa uu ahaa aabe ku qanacsan hawshiisa aabanimo islamarkaana dhabarka u ritay tabantaabinta qoyskiisa haddii ay noqon lahayd shaqada bannaanka kaalmaynta hawsha guriga ka warqabka goobaha waxbarashada ee carruurta sida iskuulka iyo dugsiga qur-aanka. ruun oo ka walaacsan cidlada iyo culayska ku soo fatahmay ayaa tiri oo maanta murugada iigu weyn oo haysata waxay tahay axmed waxyaalo badan oo igaga tegay oo mas-uuliyad badan uu haayay oo nin wuxuu ahaa aniga spoil iga dhigay oo wax walba ii samayn jiray. alxamdulilah ilaaha ugu mahadiyaa waqtigaas la joognay laakiin qof laga samri kara ma aha oo ilaahay maanta iga jeclaaday oo nin wuxuu ahaa aad iyo aad ilaahay xaggiisa ugu xiran oo dhinac walba ku fiican. ilaahayna waxaan uga baryayaa ilaahay inuu ka abaalmariyo wanaagii uu aniga iyo carruurta iyo noo geystay iyo ilaahay xarigiisa sida uu haystay. intii aan ku sugnaa guriga qoyska uu ka geeriyooday axmed ciyow waxaa hadba booqasho ku imaanayay qaar ka mida qaraabada deriska macallimiinta iskuulka iyo dugsiga iyo asxaabta oo reerka u tacsiyeynayay iyo sidoo kale qaar ka mida shaqaalihii ay wada shaqayn jireen marxuumka. geerida axmed ciyow ayaa waxaa sidoo kale ay aad u saamaysay shaqadii uu ka shaqayn jiray ee shirkadda emerson oo uu ka xoogsanayay muddo 12 sano ah. megan helling waa agaasimaha qaybtii uu ka shaqayn jiray axmed ciyow. It was such bad news. I know a lot of his co-workers were hurt very bad by the news. They were all feeling it. wuxuu ahaa waraan wanaagsanayn qaar badan oo ka mida dadkii la shaqaynayay aad bay uga naxeen warkaasi. qaarkood shaqadii bay ka tageen markiiba oo waxay u baxeen si ay reerkiisa u soo tacsiyeeyaan. shirkaddu xitaa way ka naxday ficilkan. megan waxay ahayd qofkii shaqaalaysiisay axmed ciyow 12 sano ka hor waxayna xustay inuu ahaa shaqsi karti badan oo xoog furan. megan helling oo ay geysay qaybtii uu ka shaqayn jiray marxuumka ee shirkadda emerson ayaa waxay ii sheegtay in isaga oo shaqaynaya uu haddana wax baranayay. xilligii uu halkan ka shaqaynayay wuxuu sidoo kale ku noqday jaamacadda si uu shahaadada koowaad u qaato. waxa kaloon ogaa inuu doonayay inuu shahaadada mastarka qaato. mar kasta waxaan ku boorin jiray tallaabooyin kale inuu sii qaado oo uu horumar sii sameeyo. qoyska uu ka geeriyooday axmed ciyow inkastoo ay la tacaalayaan xanuunka geeridiisa murugada xambaarsan haddana ruun marteelo waxay aad uga calool gubanaysaa dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii muqdisho oo sheegtay inaysan haysan caawimaadda iyadu maraykanka ku haysata oo kale. dadka ku baaba'ay meesha ee carruurta awoontooday oo ilmahaygu kale ah oo caawa waxay cunaan haysan oo caawa qof u maqan aysan jirin oo kuwaaba ani iga ah hataa u murugaysana kuwayga iiga daran. soomaalina waxaan kula talinaya inay ummadda dhibaataysan oo meelaha taalla awoonta iyo dadkan dhibaatadu gaartay inuu qof walba wuxuu u awoodo uu siiyo. masaajidka daarul faaruuq ee gobolka minnesota uu ka tirsanaa axmed ciyow allaha u naxariistee ayaa sanduuq lagu gargaarayo qoyskii uu ka tegay marxuumku ka furay barta online-ka ee gofundme.com. ruun marteelo iyo carruurteedu inkastoo ay waayeen aabbahood oo ay ku jiraan xaalad murugo badan haddana intii aan la joogay waxaa iga muuqatay inay diyaar u yihiin inay wajahaan nolosha cusub ee u bilaabatay maalintii sabtida ahayd ee 14 bishan oo soomaaliya gelgishay. maxamuud mascade VOA Minnesota. waxaa haddaba qaraxaasi si weyn u cambaareeyay dunida oo dhan. sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dunida qaarkood ayaa sida ay uga xun yihiin qaraxaasi muujiyey. magaalada Paris waxaa la damiyey leydhka ka iftiima Eiffel Tower oo ku yaala bartamaha magaaladaasi halka goobaha kale ee caanka ku yihiin magaalooyinka Toronto, Istanbul iyo Minneapolisna lagu shiday calanka Soomaaliya ee buluuga. haddaba balan idiin soo gudbino aragtida ay qaraxyadaasi ka dhiibteen qaar ka tirsan dadka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Minneapolis. aniga mid la shaqo ku dhintay midna waa ku laasanahay nool iyo geer kuma hayo marka dhibaato aad xoog badan waayay dad sheeganaya mujaahidiin maaha waa munaafiqiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo sabna u dhigay waa munaafiqiin diin salaam waxay qabtaa wixii maalkaaga in naftaada kugu soo aad inaad ka bixiso 300 dhalinyaro naga dhimatay miyay naga go'aan maanta waa maya naga ma go'aan ilaahay ka cabsada xaq u haydan qabto kitaabkuna haydan qabto hadaan qiyaantaan hadaan qiyaan waraamin dhaha wardiyaa mootihiin waxaan baa ku diray al-shabaab waxaan leeyahay Soomaali anagu Soomaali baan adinku Soomaali baad sheegataan sidaan malayno laakiin ma malaynayo qof Soomaalinimo iyo damiir ay ku dambayso
in 300 dhalinyaro uu dili karo uma malaynay macquul ma tahay maxaan diyaar u nahay guryaha ma ka soo baxeena diyaar ma tahay anigu diyaar baan ahay gabar baan ahay konton baan ahay diyaar baan ahay maxaa adinka maalba 300 dilaysaa 300 dhalinyaro ma naga baxdaa waa maxaan rag ku tihiin waxaan aad iyo aad ugu xumahay maalin walba inay dadka ku dhammaadaan waxyaabo maagtay oon sabab lahayn Soomaali midaan waa inay u noqoto leesan la isu wada yimaado laga wada shaqeeyo sidii dalkaas wax loogu qaban lahaa dadkaas maatada oo masaakiinta ah qaraxan oo run ahaantii mid laga xumaado waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed isu keena waxaan u sheegayaa reer Muqdisho xaafaday ku dhagan tahay inaa ogaatid waay dariskaaga xaafadda kuugu dhagan waa inaa og tahay ciidaha degan iyo cidda ku jirto dariskay ka soo baxayaan dhibaatada annaga dhan weyna saamaysay kuwaasi waxay ahaayeen dad aragtidooda ka dhiibanaya qaracii ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkana barnaamijkeenii qubanaha VOA oo aanu ku soo qaadanay guud ahaantiiba dhibaatada iyo saameyntii ka dhalatay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa tan iyo toddobaadka dambana sidaas iyo nabadgelyo